oo hadda xilligan ku soo beegay in uu sidaasi u yeesho saameynta weyn. walaal waad salaamantahay salaameen iyo martida kula joogtaaba. waxa weeye adduunka oo dhan waxa ka socda xulafo cusub oo wada shaqaysanaysa ayaa meel walba ka socota. Afrikada barina taasi gooni kuma aha. laakiin waxaad moodaysaa laba arrimood inay sal u yihiin arrintan isbeddelkan ka dhacaya meeshaasi. mid waxa weeyaan dowladda Itoobiya intuna ra'iisul wasaarahan iman Dr. Ahmed oo xukumi kari weyday wadankii markaa raadisay in jaha cusub wadanka loo helo. taas mid weeye. Eritrea qudheedu waxay ka daashay dagaalkii aad bay uga daashay, kharash badan baa ka gala, dad badan baa kaga baxsada oo dhalinyar ah. mana sii wadi kara soo jidkaas in lagu jiro haddii la doonayo inuu wadanku hore u maro. labada arrimood ee adag ee labada dal helay ayaa diyaariyay in la isku iman karo haddii isbedel ka dhacay gaar ahaan wadanka Itoobiya oo iyada markii hore diidanayd sharcigii la soo oogay adduunyadu soo oogtay inay ka baxaan magaalada Baadami ee wadanka ku taala oo Eritrea leedahay. mar allaaliya markay taa ka baxeen fursad waxa uu helay President Isaias Eritrea inuu keeno in Itoobiya wax cusub ka socdo oo la jaan qaado taasi isaguna uga faa'iideysto. qolooyinka imaaraadkuna deewaaye fara badan waxay ka qaraabanayeen Afrikada bari gaar ahaan wadanka Soomaaliya. waa kuwii berbere amuuraha ka samaystay, waa kuwii boosaaso ka samaystay, waxyaabo caynkaasina way jireen. marka waxa soo muuqatay fursad hay isleeyihiin qolooyinka imaaraadka oo lacag badan haysta inay meeshan balliqi karaan hadday labada wadan isku geeyaan walaal. marka macnaheedu waxa weeye in imaaraadku ay u jeedaan fursadaasi. waa yahay aan u wareego Dr. Xasan qadka telefonka ee magaalada Muqdisho. professorka hadalkiisa oo maqlaysa Dr. Xasan, adiga maxay kula tahay? bismillah. marka waxaan salaamayaa guud ahaan asxaabta ku jirta khadka oo aqoon-yahanada ah iyo Soomaalida inteeda kale. inta dabadeed waxa dhacaya qaadayna waxay ka dhaceen Itoobiya iyo geeska Afrika iyo kadib bariga dhexe iyo adduunyada. sida aan ognahay marka sida uu sheegay Professor Ahmed waaye Itoobiya waxa ka dhacay isbeddelka soo cusub ay riixayaan oo gudaha Itoobiya ka jiro force cusub ah. Itoobiya san ognahay wadankan ama mandaqadan geeska Afrikana ayada ayaa waxay ka tahay major power oo dhulka qaybaha kale ayada xukunta ama xoog badan. wixii ayada ka dhaca marka waxay si toos u taabanayaan wadamada ku xeeran sida Eritrea, Djibouti, Soomaaliya, Kenya, Uganda, caadiga iyo xataa ilaa Masar ay gaarayaan. kadib haddana waxa weeye waxaa dhacaya dhexe oo hawl kaleeto muhiim ay ka socoto isla markaasna geeska Afrika iyo bariga dhexe interconnection ayaa haddana kusoo bitaacaya. waxay noqonaysaa global level adduunyada kor marka political la keeno. meesha waxaa si dadban ayagu ugu jira oo kuwada kala ku jiro Kenya, Turkiga, Shiinaha iyo xataa mataqaanaa si dadban mataqaanaa raadiyada ayaguna meesha ku jiraan. marka xoogag fara badan oo ujeedooyin kala badan leh ayaa meesha isku haya. laakiin ubacdu waa Ethiopia oo gobolka ka socota, imaaraadka oo wakiil ka ah reer galbeedka oo siyaabo kale ugu shaqaynaya, iyo Shiinaha oo ayaguna xoog cusub oo kusoo biiray mataqaanaa geeska Afrika. waxaa jirta marka Shiinaha waxaan ogoleen, Maraykankaan ogoleen, Turkiga imaaraadkaan ogoleen. marka waxaa dhacaysa marka iyadoo leesbahaysanayo in Maraykanka uu soo dhex maro imaaraadkuna ay Ethiopia soo dhex maraan oo kadib ay sidaa u galaan. kadibna fursad loogu helo hal mar in Shiinaha la celiyo oo lagu sameeyo containment, Turkiga in la sameeyo containment, kadibna gobolka geeska Afrika lagu sameeyo redesign ama geopolitical design, aragti cusub iyo qaab cusub loo sameeyo. isbeddelka Afrika marka dhinac wuxuu ka leeyahay muuqaal siyaasadeed, dhinac kale wuxuu ka leeyahay military, dhinac kale waxaa loo sameynayaa muuqaal dhaqaale. marka qoloba waxay wadataa ajenda iyada oo gaar ah. qoloba ajendada wata. halkaas iigu hay Dr. Xasan. marka waynu eegi doonaa qolo kastaba bal ajendaha ay leedahay iyo gaar ahaan dadka aynu la hadlayno ee Soomaalida ama geeska Afrika ku dhaqan sida arrintani ay faa'iido iyo khasaare ugu leedahay waynu ka hadli doonaa. waa yahay aan u wareego dalka Talyaaniga. Dr. Shukri Saciid, waad maqlaysaa professorkii Dr. Xasan iyo Professor Samater. adigu inta